walaalahan kala go-ay saysta gacmaha dhammaan iyagay wada leeyihiin diintay isku gargaarsadaan gabdhood bay isu yihiin youtubadu gaar bay isu leeyihiin guddoon wacan baa dhex yaal kalgacalaan gaboobiyo guddooba salaam baxnimo gacmuhu ay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان سلامي أصحابتك وحرا كانن كفردوس تنساني وحان هاد علينا يا أصحاب تهوري مر والبا وان هاد عليا وحان يغانا أنا مرنا به المامين وان هاد عليا أصحاب تعصوبة كسو بيرتي كاننكا وحان ليه جزاكم الله خيرا جزاء إن ما أنت وحان كهاد لينا إن شاء الله بإذن الله لبا برنامج أو اسكو ميد labada barnaamij waxa weeyaan waxa aan ka hadli doonaa waa wiilkii aynu hore uga soo hadalay sawirkiisa halkan ku arki doontaan insha Allah wiilka iyo xaaskiisa way soo hadleen runtii hadalkoodina waan ku dirsaday dad waanadii iyo wacdigii aynu u dirnay maqlay oo ku tadabburay ayay noqdeen waxaanay sheegeen in waxa ay sheegeen in aqoon la'aan uu kaliftay aqoon la'aan marka wiilka wuu hadlay wuxuu yiri waxaan qaatay buuri dadkii ila soo hadlay waanadooda dadkii sida wacan iigu naseexeeyay waan qaatay buuri waanadoodii naseexadoodii waan maqlay wuxuu yiri waxa igu kaliftayna waxay ahayd inay nacdalay ku socotoba qofka sunnaha xiirta qalbigayga iyo maankayga way ka baxsanayd aqoon iyo cilmina uma lahayn cudurdaar ayaabuu keenay marka cudurdaarkii uu keenay waxaanu yiri dib oo dabadaysa ugu noqon maayo waxa aan maanta falay iyo waxa aan sameeyay midnaba runtii anaguna waxaan hadalka waan ku diirsanay waanu jeclaysanay qofka Allah subhanahu wa ta'ala ayaan dambaabin bina aadan oo dhan waa gafaan oo dambi waa galaan waxaana ugu fiican in bina aadanka intuu dambiga gala ka soo noqda marka wiilkaas haddii aan markii horeba sheegnay dhaliishiisii waa inaanu sheegnaa haddana wixii uu ku wanaagsanaaday waxaa jiray dad soo caayay qofka bini aadanka marka aad wax u sheegayso inaad cayda ma aha qofka waabad u naseexaynaysaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa macallin inaga inoo ahaa macallin maxamed calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa macallin inoo ahaa dadka muu habaariti jirin dadka muu hiifi jirin dadka muu caayi jirin kaliyaata wuxuu u samayn jiray naseexo iyo waanu u naseexayn jiray waanu waanin jiray marka inagana waxaan jecelahay inaan dadka una naseexayno waaninana waxaa jiray dad kale oo uu ka cabanayay wiilkaasi oo wuxuu yiri ay aniga i caayay uu aniga i ceebeeyeen aniga i aflagaadeeyeen waxaan leeyahay aflagaada kuma lihidin walaalkiin xaaskiisana aflagaada kuma lihidin kaliyaata waxaynu nahay dad isu waanada isu sheega waxaynu nahay dad isu naseexeeya dad wixii qaldan sheega marka wallahi maanta aad baan ugu farxay markuu soo tuubay clip uu yiri dadkii ii naseexeeyay ee sida wacan ii la hadlay waan u mahad celinayaa waxa aan leeyahayna ilaahay baan ku gafay dambi quruxdii uu ilaahay sameeyay ee uu abuuray ayaabaan buu yiri wax ka bedelay qofkaasina qofka wax ka bedela quruxda allana waa qof nacdalna buu yiri mar rabo inaan adduunka ku ilaahay igu nacdalana ma jecli aakhirana inaan guuleysto waan jecelahay adduunkana inaan guuleystaan jecelahay wiilkii saasuu yiri runtii waxa uu ogaaday waxaan uu ku jiray inay qalatay waxa jira dad inta aad waaniso ama aad u naseexayso dadka adoo u naseexaynaya waaninaya ayay indhaha iska ridaan indhaha ayaaba iska ridaan xumaantina waa ku sii socdaan marka wiilkana ma sha Allah tabaarakallah wuxuu noqday wiil dambigii uu galay qirtay ilaahayna u toobad keenay awalba dadka bini aadanka dambi kama galin waxba kama dhicin waxba kama xumaynin waxa kaliyaata Allah subhanahu wa ta'ala ayuu quruxdiisi wax ka bedelay marka waa ilaahiisi abuurtayna waa u soo noqday waana u toobad keenay dadkeeni wanaagsanaaye waanaysay ee waanadii u dirtayna wuu u soo mahad celiyay waxaan leeyahay ilaahay ha ku barakeeyo walaalka Allah ha ku barakeeyo xaaskaaga Allah ha ku dhowro
awlaadaada allaha kuu dhowro awlaad baad dhashay awlaad ilaahay awlaadaada baariha kaaga dhigo sababtoo ah maanta awlaadaadu wixii qaldan ay arkaan iyaguna way raacayaan macallin baad u tahay marka waxaan ku leeyahay insha allah biidnillah waqtina daan kula kaftame waxaan ku leeyahay waqti yarna waxaa tiri cilmi diiniya malihi cilmina ma laha inan yar baa tahay gabadh marwada aad qabta xaaskaad qabtaana weli way yar tahay waxa aan ku leeyahay cilmigana kolle online baa hadda lagu bartaa youtube-ka laga bartaa tafsiirkii baa ku jira wax kastaaba waa ku jiraan marka waxaan ku leeyahay walaalkayow cilmiga diiniga ah isagaa ku anfacaya adduun iyo aakhiraba isaga ayaabaa ku anfacaya waa inaad waqti waxa kalaba waad u samaysay jalwad amaba waxaan kaa codsanaya inaad jadwadna u samaysay cilmiga diiniga adoo gurigaaga dhex fadhiyaad hadda baran kartaa tafsiirkii baad baran kartaa axaadiistii baad baran kartaa xusnu muslimkii baad baran kartaa maasha allah tabaarakallah waxyaabo badan siiradii nebigaad baran kartaa marka waxaan ku leeyahay waqti u samee cilmigana maanta waqti waad haysataa cilmigana waa inaad inan yar baatay dhalinyaraatay weli waqti kaama tegin marka waxaan kaa codsanayaa aan ku farayaa inaad maalintii hal suuradaba tafsiirkeeda inaad barato oo ilaahayna kugu anfaco ayaabaan rajaynayaa walaalkeen iyo walaasheen waan u ducaynaynaa mar kastaba dembigaa waxa ay yidhaahdeen mar damba ku noqon mayno waxaa kaloo haddana baaq labaadaan u diraynaa sheekadan horta challenge-ga ee sunna xiirka waxaa laga keenay waa gaalo ayaabaa waxaan samaysay innaguna gaalana waxay amarka ka qaataan yuhuud iyo nasaara waxa ay amar ka qaataan shaydaan muslimiintana ilaahay wuxuu ku arsaaqay diin macaan oo muslim ah innaguna waxa aynu ka qaadanaa haddaynu muslimka nahay waxa aynu ka qaadanaa waxa ay tahay allah subxaanahu wa tacaala marka challenge-gan sunnaha laga xiirayaa inagu gaalo ma nihin gaaladu shaydaan ayaabay amarkooda iyo amaa'irtiisa ka qaadataa inaguna waxaynu ka qaadanaa amarka allah marka waxaan leeyahay wiil kale oo culusow iyo xaaskiisa intuu indhihii ka xidhay ayuu yidhi surprise ayaabaan u siinayaa gabadhii markuu indhihii ka xidhay uu surprise-kii sheegay ayaabuu sunnayaasha isaguna ka xiiray digniintii walaalkeena aan u dirnay ee uu ku taamilo qaatay ayaan maantana culusow iyo xaaskiisa aan u diraynaa waxaan leenahay culusowow walaal waxaanu jecelnahay mar walba inaanu waanino walaalahayo iyo xaaskiisa waxa aanu leenahay waa nacdalan tahay qof abuurkii alla bedelay waxa weeyaan macluumaad qofkaasi waa qof nacdalan waa nacdalan yahay qofkuna hadduu nacdalan yahay ilaahay xidhi lama laha marka waxa aad bedeshay adiga laftigaagu waa quruxdii alla marwadaada siiyey marwaduna marwo lagu ciyaaro oo challenge lagu sameeyaa way ka weyn tahay waa nimco alla ku siiyey awlaadu waa nimco alla ku siiyey odaygaagu waa nimco alla ku siiyey ooridaadana ma mudna mana geydo in challenge raqiis ah oo gaalo laga soo koobi gareeyay inaad gabadhaada ku samaysaa waa nacdalan tahay haddii ay abuurka sunnayaasheeda midabkeeda fanaxdeeda sankeeda daldaloolka taatuuga intaasiba waa dadka nacdalan hadday ku kacaan oo ay falkaa sameeyaan markaa waxaan leeyahay nacdal qof muslimaa tahay diinta islaamka lagu soo barbaariyey qof wanaagsan ma sameeya arrinkaas waxaan leeyahay qof wanaagsan baa tihiin waa idinla baydhay dhallinyaranima idin qaaday biliis waanadii walaalkaygii hore aan u waaniyey ayaabaan maantana ku waaninayaa waxa aan leeyahay walaalkayow waxaan ku leeyahay walaalkayow adiguna kasoo laabo ilaahay u toobadkeen walaalkeenaasi siduu u toobadkeenay adiguna u toobadkeen markaa waxaan ku leeyahay waxaan idinka codsanayaa waa inaydan noqon macluumaad inaydan noqonin dad nacdalan inaydan noqon aad dad wanaagsan noqoto idinkoo adduunyadiinana wata aakhiradiinana xasuusataan wixii diintaada islaamka ceebeynaya wixii diintaada islaamka dhaliil iyo xumaan ku keenaya
waa inaad ka hadhaa ilaahay dartii inaad uga hadhaa markaad ilaahay dartii uga hadho ilaahayna wuxuu kaa soo gelinayaa meelo badan oo aan la fahmayn oo aan la ogeyn oo aan la dareemaynin haddaad doonayso views badan 2 ragcadood baad tukanaysaa ilaa hadduu khayr ii leeyahay waxaan kaa barayaa in ummadayda islaamka aad ii soo jeediso haddii aad u baahan tahay adduunyada inaga gashay ee youtube-ka la sheegayana waxaan ku leeyahay ilaahay oo aad ku xidhnaata ayaabaa ka wanaagsan oo ka qurux badan oo challenge iyo wanaagsan oo diiniya lasoo bandhigo oo maxaa inaga inoo diiday gaaladaniba waxay soo bandhigaysaa challenge-iyo xumaan ah iyo sunno la xiiree inaga diinteena islaamka iyo challenge-geena iyo tarbiyadeena iyo axaadiisteena inoo soo bandhiga oo isku soo xujeysta axaadiista oo isku soo xujeysta siirada nabiga oo isku soo xujeysta quraankeena macaan oo xujooyin fiican aynu isku xujeysano inta sunno la xiiriyo san la dalooliyo iyo fanax la samaysto iyo hees la qaado iyo qurun la bahaleeyo la samaysanayo waxaan idin leeyahay walaalahay baa tihiin kasoo noqda waa dembi sunnaha oo la xiira waa nacdal marka waxaan idinkaga tegayaa asxaabta ku xiran channelka Farduusta Saani please waxaan idinka codsadaa waa subscribe like iyo comment caafimaad qaba asxaabta i daawatana asxaab badan baa i daawata laakiin subscribe-ka way ka ilaawan iyo like-ta waxay iga caawinaysaa in dad badan oo wanaagsan sidiina gaadho subscribe-kuna waa macmiisha please intaasaan idinka codsanaya waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh